haatan waxaa khadka telefoonka ee shabakada caalamiga ah ee Khaatimo News ku jira Cabdiweli Yaasiin Suudi oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee gobolka Sool. Cabdiweli ma maqlaysaa? fiican baan ku maqlayaa Cabdino. Cabdiweli waxaad noo warbixisaa xaaladda COVID-19 ama coronavirus ee gobolka Sool. See looga diyaar garoobay xaaladda gobolka, see looga dareemayaa bal xaaladda gobolka iyo xanuunkan halka isla marayaan nooga warbix. Cabdino aad iyo aad marka koowaad aan ku salaamayaa adiga shabakada Khaatimo News xanuunkan caalamiga ee COVID-19 marka la eego saameynta iyo caqabada uu leeyahay iyo diyaargarowga gobolka Sool runtii aad iyo aad bay u kala duwan yihiin. magaalada runtii laba caqabadood ka jirta waxay tahay in dadkii ama bulshadii aynan ugu diyaar garoobin xanuunkii ama cudurkii COVID-19 iyo in dadku aynan ka warhaynin ba runtii saameynta iyo caqabada uu yeelan karayo bulsho ahaan, dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba uu yeelan karayo xanuunkan. waa tahay xanuunkan ilaa hadda miya jiraan wax kiisas ah oo gobolka lagu sheegay? magaalada ma jirto wax kiisas ah oo lagu sheegay, laakiin haddii aan su-aasha ugu horeysay aad weydiisay aan ku noqdo waxaa jirta runtii magaalada marka la eego deegaamada kale ee ku xeeran gobolka diyaargarow la-aan baahsan baa ka jirta. tusaale ahaan oo kale dadkii ma ay qaadanayaan awaamirihii ay wasaaraddu caafimaadku ay siinayso oo kale sida kala fogaanshihii oo kale dadku inay istaanshika ilaaliyaan oo kale fogaanshaha inay ilaaliyaan. magaalada nolosheedii oo kale sidii hore caadiga ahayd bay u soconayaan. kulmadii iyo dadka inay isku yimaadaan oo kale sidii ma ayna dhaqan gelin runtii taas oo dadkii way isku imanayaan. qaadkii ayaa waa laga joojinayaa magaalada oo amar soo baxay oo goboladan maamulkan Soomaaliland hoosta uga dhan ahaa. isla markaana runtii ma jirto wax ka dhaqan galay awaamirta ay dawladda soo saartay oo meheradii sidii baa maxay dadka ajaadka ay ugu wada cunayaan. haddana waa wax la mamnuucay oo ay gobolada kale runtii sida gobolkan ay uga tacaamulayaan habka maxay ay dadka ay u isticmaalayaan muqaadaraadka. waa runtii wax gobolada kale oo aad iyo aad ay uga duwan yihiin oo tuulooyinkii ayaa qaadkii laga soo qaadanaya kadibna magaalada loo soo gelinaya. waa tahay mar haddii sidaan la socono xaaladda coronavirus waliba siiba dalka Soomaaliya waxaad moodaa berigii ugu dambeeyay inuu aad u sii fidayo. gobolka maxaa sababay in xilligan maaragtay isbedel weyn uusan ku imaan oo nolosha sideedii hore u socoto? kulamada shirarka maxaa sheegayay maxaa sababay iyadoo khatarta xanuunkan jiro inuusan isbedel dhanka maaragtay caafimaadka aysan sameyn ama digtoonaan? waxaan u sababeyn karayaa runtii awaamirtii ay maamulka soo saaray ayna dabagelaynin baan u sababeyn karayaa. dooraato magaalada wax ka dhacay haddaan dhacdo ka dhacay door haddaan usoo qaato tusaalahaan soo qaato qaad ayaa la qabtay magaalada soo galay. qaadkuna runtii si weyn ayuu u fidin karayaa xanuunkan COVID-19 oo waad aragtay qofbaa kabar imanaya. kabarkan marka uu yimaado qaadkii wuu tataabanaya, mid kale uu iska celinaya, mid kale qaadanaya. waxaa laga yaabaa in uu dad fara badan runtii muqaadaraadka qaadka xanuunkan ay ka qaadaan. aan ku noqdo dhacdadaas qaadkii markii la qabtay waxaa lagu gubay meel magaalada dhexdeediya. qaadkii oo dadkii lagu hayo ayaa kuwii waday booliska ahaa waxay sameeyeen dabcan qof kasta uu fiirin karaya waa dhacdo mubaax oo dadkuna wadaagaya in ayaga ay la kala cararaan ku waday ay dib u isticmaalaan xarumahoodii iyo iyo meelaheedii ay laadaan. runtii marka waxaan oran karayaa diyaargarow la'aanta waxa sababay waxa weeye dadkii dawladdiina runtii ma dabagelaso awaamirta ay soo saartay. dadkiina ma qaadanayaan runtii oo waxay og yihiin in waxaan lasoo saarayba aynan ahayn wax lagu kaantaroolayo saa lagu sii dabagelayo. waayahay xilligani khatarta xanuunkan aad buu sii fidayaa bulshada gobolka iyo guud ahaanba dadka deegaanka maxaad ugu baaqi lahaa iyaga?
runtii waxaan ugu baaqi lahaa dadka deegaanka waxaan ugu baaqi lahaa in ay qaataan awaamirta wasaaradda inay qaataan in ay wacyigelinta la siinayo ay qaataan in ay yareeyaan kulamada in ay nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneedba ay ilaaliyaan sidoo kale waxaan runtii loo baahan yahay in laga diyaar garoobo bulshada gobolka waxaa looga baahan yahay in xanuunkan ay u diyaar garoobaan wuu iman karaya xanuunkan ilaahay baa haya oo dabcan waad aragtay gobolada koonfurta sida ugu fiday oo kale iyo maalinba tirada inay sii kordhiso waxaan oran karayaa goobta xanuunkan loogu talagalay in agabkeeda loo dhammaystiro sida maxay ahayd oxygen machiniska iyo ventilatorska in la kordhiyo oo runtii cadad ku filan haddii dabcan ay timaado wax kaysa ay yimaadaan oo kale in loo dhammaystiro agabkaas oo dhan la dhammaystiro waxaan si gooniya aan ugu dirayaa warbajoogta iyo ganacsatada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in ay xilqaamaan runtii oo maanta maalin looga baahi badan yahay deegaanka uga cataad badan yahay ma jirto inay gaarsiiyaan agabkaas sida ugu dhaqsaha farda inay ka shaqeeyaan halkii loo gaarsiin lahaa dadkaas agabkaa loo gaarsiin lahaa goobtaas loogu talagalay dadka in lagu karantiilo iyo in iyo goobta loogu talagalay in lagu daweeyaba ama waaya ugu dambeyn dadka gudaha iyaga jooga deegaanka ku nool habacsanaanta faraha badan ka muuqato iyaga maxaad ugu baaqaysaa dadkan deegaanka waxaan ugu baaqayaa runtii in ay qaataan awaamirta wasaaradda inay qaataan waxaan si gooniya aan fariin aan ugu dirayaa wasaaradda caafimaadka waxaan fariinta aan u dirayaa waxay tahay in ay dabagal dhamaystiran oo buuxa inay samayso in ay samayso subcommittees ama guddiyo xaafadeed inay samayso dabagala dadkii wacyigeliyo wacyigelintii balaayo waxaa laga yaabaa in hal gaari ay microphone saarto halka gaari hal saac uu warwareego kadibna maxay tahay uu noqdo waxaa loo baahan yahay in si diib iyo dadkii loogala hadlo xaafadaha loogu tago in xaafadii walba maxay tahay guddi isla markaasna gobolada qaar uu 500 karo tirada u dhaaftay waxaa la baahan yahay in aad u hoggaansantaan awaamirta wasaaradda inaad hoggaansantaan sidoo kale xanuunkan waxyaabaha ugu fara badan oo ku faafa waxaa ka mid ah dadka off-crowdka isku imanaya in kala fogaanshaha la ilaaliyo intaas baan ku wadaarnay bulshada waa tahay waad mahadsantahay Cabdi aad iyo aad u mahadsantahay salaam alaykum